darneed gabar 15 sano waalneed mucjizaadkana soo maray mucjizada ugu weyn ay ka mid tahay gabar 15 sano waalan oo reerkada ka quusteen hooyadii kaliya qoorsan weysay oo meelaha kuwa dhimarka la meelaha lagu xareeyay laga quustay baa maamadii intay noo imaatay waxay tiri saliida raaw hal isiyo adaa lagu barbarna marka ilaahay kan xunu ka wareejina kan fiican oo dawada ka helaysa toos u abaaraysa laakiin dhakhtarkaan aan tagay waa ka daanay mid kale hadan kilibkii sheekhan shaabi suufi wiilkiis ilaahay ku caafiyay ummadda wax badan buu qabtay waa ugu mahadcelina sheekh ilaahay barakeeyo hadalkaas uu soo duubay oo qaran dadku ku soo jiheeyay inay quraanka isku daweeyaan mid walba wuxuu kale toddoba khadman rabaa toddobadii sheekh dardaarmay hal isaab waxaan ogaaday marka dadka culimadooda iyo madaxdooda inay culimada u dhig nugul yihiin dad badan oo waxaa jira alxamdulillaah oo wadanka aanan joogin imaan karin intaan imaan karin waxaan u fududeynay in aan ugu akhrino quraanka saliid qof waliba fadhigiisa ay ku gaarayso saliidda codsigeeda aad u badan yahay dad badan baa naga soo codsaday marka waxaa badanaa dadka ay ka heli karaan muqdisho markastoo muqdisho qof aadayo waa u dhiibnaa qofkii markaa safar meelaha u qaadara xagga u sahlan dadka hebel iyagu soo dhiibta aad u badan saliiddaas quraanka lagu akhriyo ilaahay dad badan ba ku caafiyay waxaa ugu darneed gabar 15 sano waalneed mucjizaadkana soo maray mucjizada ugu weyn ay ka mid tahay gabar 15 sano waalan oo reerkada ka quusteen hooyadii kaliya qoorsan weysay oo meelaha kuwa dhimarka la meelaha lagu xareeyay laga quustay baa maamadii intay noo imaatay waxay tiri saliida raaw hal isiyo gabar qof ay iga xanuunsan gabadha shaha saliidii siinay dadkeeda xataa ku jeesjeesay waxaa liiday tarjum malaana saliid qof laga quusayna saliid u marisid adii ma waalanta adaab waalana waa la waalata gabadha ilaahay kaalmaystay quraankeed kaartay ku akhrisay saliidda culimadana quraan ku akhrisay tabcan markay u marisay gabadha way fiicnaatay gabadhii oo fiican oo tukanayso cidihii iyo timihii ku baxay ee laga soo jiray oo la soo habeeyo jilbaab loo soo geliya ayadoo nool la keen marka ii sharxiis waxay tii muujeeda gabadhaas quraanka akhrinayso waa taahtii laga qoostay maantana quraan ay akhrinayso markaasay waxay iga codsatay inay cod duubto oo muslimiinta la hadasho quraanka faa'iido uu leeyahay oo u cadeyso practical waxay u aragtay inay sheegto qofkii marka wax raba inuu noo duubo waxaana duub dadka u faa'iiday laakiin qofka kaamera kama duubno codna kama qaadno oo si aan مثلا hayeysiin ahaan wax uga qaad weligeena maana sameeyay wallahi alxamdu wal minna qofkii marka wax arko caafimaad asaa hadlaayo intuu la hadlaayo bahdana wixii shaakadii maqlaayaan aykan way noo imaadaan marka ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala saliidaas noo sameeyna dadka loo diro oo dal idil meel ay joogaanba reer sacuudi ahaan marka sacuudiga jidda oo kale waa la geeyay xamar waa la geeyay qofka u baahan lambarkaas lambarka la siiya meesha ka sii qaata marka cudurada marka waxaa aad u badan marka dhakhtar ka soo daalay dadka dhakhtar ay ku bilaabaan الأساس وإن قرآن كل قبلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن كمركز وجهورين قرآن كقادته اشترك مركز أسعته نختارك أوفي عن وقت وجابا داود أوفي عن أيوة آيات كليسة ما ده هيدا ستوارها آدينا يقين تزمنا جاري وأنا ستوار كمار الناس كدافنا يقين تدمهنا قبل سعير الله النبي بركه الاستاغتي ويرى عليه الصلاه والسلام ايده كتري يا رسول الله وان صوحا نبان قواني عافمد رب ويرى هذا جنة ربته اسك صبر حنون كذا الا لابد يقين تسمعين لكن حرمنا وحول الباب قرات كجلس قران كان نقول فيه شفاء للناس
شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة على لغو آخر لغو دمي ما كبح القرآن كان دخترك آدمرك دخترين تمركوي كلا بحان قال بربرد واي هدي شقد بلاوينو هنقولي كسور هذين هذا يكون بربرنا إنه يكون جاجحان والقدنا لغاقر هذا دمتين دواء صحيح المقطع قفا كو صحيح أما هذا صحيح ولغو بربرنا دختر في عنكم أديسيت والله غيا ولا دختر كلا دوان ومدنا اكسبيرينس دور سنة له ميل جو مدنا ما أنت كله إسكفرتي هذا لغو بربرنا marka ilaahay kan xunu ka wareejina kan fiican oo dawada ka helaysa toos u abaaraysa laakiin dhakhtarkan aan tagay waa ka daanay mid kale hadana mid kale kilibkii sheekhan shacab suufi wiilkiisa ilaahay ku caafiyay ummadda wax badan buu qabtay waa ugu mahadcelinaa sheekh ilaahay ha barakeeyo hadalkaas uu soo duubay oo qaran dadku ku soo jiheeyay inay quraanka isku daweeyaan mid walba wuxuu leeyahay تضبط خدمة ربع تضبط الشيخ دردار معي هلا إصابة وحن أقول مرك دتك علماء ذودي إما ضح ذودي يعني علماء ذودي نقوليه علماء آد وجعليه وركض دوا أقاطع مرك إن شاء الله تعالى دكتور مرك مرة داعي ده مرك عليه سي دكتور وكسر الدالي عذر كي حل ولواي وحي هين ولا جنواي هوس يقربوا وداوعنا مركا دحday أنا وكفر waxaa ugu farxay ajaa'ibta arki doonta caafimaadka heli doontan oga oo ilaahay ku siin doona yaqiin hadii laga helo